أرد خير أبوي وهي لغير وقرجن مركان جاز الصراع قال جعلوا دركتين قلبتا وجيري دودي حق البيت نقجري قاس ساجوغا قده تكويا لجيت قد كوينا بحو قاس ليدر قلت بعضان كويقان قال ولا الخيو قرجن قلبي سوح ومالا جلنتين واجيس اللقودار تيجيد قدوينا تحق القران نكويبي كما جبه قوس ومقار جيكي قرفايا حسرو قيدا سررور قويا حتى لغا عيلا بلقا فوضو فضا دبيشا قلقليسا وحقرن ميسد أفرت دقا سودي قرور بويتاي قده هيدا والغو بحاق على هلي وقرجن جيك قبيب كويال ومسر انجل قليرين جيك قبيب كويال وانجل قليرين قوسم بيت وقبرتوت قوال لغا مهلا قوسم بيت وقرجن قور شراقي سيدل دار أرجع الخي قرجن قور شراقي سيدل دون قعالي ولا الخي واقو وشن لجوك ثم قبل ما مقير يوالا قلو قلم نكون هذا إبسان نقرب كاقا بلنك عمك فقور حجارتي إني ويل كنتي قعالها جوكتو جيت قبيب كويال واقو قلبو داري وقعالي ولا واقو دقين نوالو قبحا قوري سودوادو شرقرية أصحاب الشرقرية جيت قدوين الله كادقا فرتقاسو قعالي ولا البلا قد بلا هذا اسكابحي سات مقرهاشو soo dhawaada nala sheer gareeyo kala markaan saa gudbi gabayga kaasa gabal dhacay gadaalu marrabtay waa gab hadalkiisa jeel garaafo lagu gataa malaka giirgiire kasalooda waa laga gartaa godobna kiigiisa galgal yoom alqiyaama godaa qaraa sugaayo galgal yoom alqiyaama godaa qaraa sugaayo gogobta waa dir cirkaa soo go'dorina galkari galaabaha markaa soo gunda sheer gareeya soo dhawaada ala sheer gareeya barnaamijka galabtada markaan soo maroon galal kareeba godigo markaan soo galaan galal biyeeya gabagaba colaad baa mashanay maalan galantayda galyarey filaarteeg gamoongeeda laga goosa garbadsimendiga sheer gareeya dhammaan guulka dhaliisaano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummada soomaaliyeed meel walbaa joogtaan waanii wada salaamay soo dhawaada barnaamijka la sheer gareeya meel walba hala gaarsiiyo soo dhawaada arrin yar arba caawina ka hadlo oo ku saabsan beelweedka garjanta gardheere soo dhawaada marka la sheer gareeyo fadlan walaysa amran sheer gareeya marka sheer gareeya soo dhawaada ahla wasahla dhammaantiin walaalahay oo dhan hala soo dhawaado asxaabta meel walbaa joogtaan wani wada salaama soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad ummadda soomaaliyeed meel walbaa joogtaan wani wada salaamay caawa barnaamijkeena muxuu ku socdaa beesha garjanta gardheere samaale maxaa kasoo cusboonaaday maalmahan ayagii xildhibaanka iyo doorashadii soo dhawaada barnaamijka la sheer gareeyo insha allah meel walbaa joogtaan maxaan iga dalbanayna barnaamijka sheer gareysaan mar walba xog kasoo muhiim ah war kasoo muhiim ah maxaa jeclaa inaan nila wadaago beesha oo ku saabsan beesha garjameed inaan nila wadaago meel walbaa joogtaan wixii oo beesha garjameed ku saabsan inaan isla wadaagno oo ka wada hadalno war hoos loo dhigayo iyo waa dhammaatay iyo beeni insha allah beesha garjameed raggeeda dhalinyarteeda kulli oo wada taagan insha allah soo dhawaada beelweynta garjanta gardheere meel walba joogtaan dalka iyo dibaddaba barnaamijkeena insha allah waa gaabiyaha mana dheero mana uu dheereynayo cawada insha allah maxaa rabaa horta ka hadlo
dhalinyartii samaysteen xafladii oo ka dhacday nairobi iyo muqdisho ay kusoo bandhigayeen beesha calankeeda maasha allah dhalinyar aada iyo aada u wanaagsan waaye waana mahadsantihiin waa dhalinyar isxilqaameen gabdhay wiilalbo aad ani salaama maasha allah dadku weyn tahay garjantinimada tiin oo beesheeda ku weyn wixii qaban waayeen odayaashii qabateen waa is abaabusheen xaflad maasha allah samaysateen calankiina kusoo bandhigteen maasha allah aada iyo aada ugu farxay qof walbo damiir la garjanna oo ku farxay intaa tuugada ahayn bes marka maasha allah meeshaanaan iga salaama wiilashii gabdhihii oo xafladii aada u wanaagsan samaysteen maasha allah waa dad damiirkooda iyo dhiigooda garjan ku shaqeynayo maasha allah aada ugu faraxsanahay inuu dhalinyar sidaan oo kale u jecel beeshooda oo dhiig leh oo u kaceen beeshooda garjameed inay soo baxeen maasha allah sidaas i ka badan insha allah waa lilaga rajaynaa inaas abaabushiin oo dhalinyarta garjameed aan gacantiis qabsadaan oo wixii midnimada garjameed ka shaqeeyaan oo wixii beeshaan horumar u ee qabsadaan oo wixii beeshaan caqaba ku ah iyo magaciisa la gooyo ku ah inay ka hortagaan oo magacooda iyo sumcadooda ee dhoortaan insha allah aada iyo aad aan ugu faraxsanahay insha allah taas inaa ka shaqaysiina waa rabaa midda loo taagiyaha nin kasto ama gabar kasto ama wiil kastoo garjan ah dhiigiisa garjameed ah taasoo oo horumarina hadafka kow waa garjan wixii dambe ka bacdi marka maasha allah aniga aada ugu faraxsanaa xafladda soo dhawaada xafladdii la qabtay aada ugu faraxsanaa maasha allah laakiin dhalinyaray wax baan ii sheegaa dhalinyarta beesha garjameed khaasatan wax baan ii sheegaa aniga niyadiin aada u wanaagsaneed xaflad weyn baa samaysateen calankiina kusoo bandhigteen maasha allah oo beesha dhan ku faraxday laakiin wax baa dhacay ayinka ogeen dadka qaarkiisna dee og yihiin inaa ka degnootiina rabaa insha allah hal sheer garee barnaamijka youtube-kana like iskaraab ala saar insha allah taasaan iga codsanaa marka dhalinyarta qaarkooda maasha allah iyo kulligoodaba niyad wanaagsan iyo farxad iyo magaciise magaca beeshoodana kor u qaadaan xaflad u samaysteen marka ayadoo xafladaas la samaysanayo magaciise maxaa laga lahay ahdaaf oo siyaasiya ahdaaf siyaasiya dhegtiin iyo fura iyo dad oo mudanisiin ah xafladaas fara ka qayb galeen iyo dad jaasuus u ah xildhibaankii hore caananuug isagoo ku socdaa xildhibaankii hore caananuug dad u shaqeeyaan ama dad oo soo dirsaday markuu waaye rajo uu ka waaye odayaasha iyo cuqaalka beesha garjameed gardheer samaale markuu ka waaye rajo fiican maskaxdiisa yar maxay tustay dhalinyartii iyo magaciise wiilashii gabdhaha oo samaysanaya xaflad oo nairobi ka samaysteen iyo muqdisho inuu oo magaciisa dhexdooda ku dhex dhuunto oo dad asiga u shaqeeyaan oo lilasaf cadowsad u shaqaystayaal ah oo laakiin beesha garjameed inay ku dhex dhuuntaan oo ahdaafkiisa asiga oo rabo iyo bandhiga oo magaciisa inuu soo bandhiga inuu murashax yahay iyo inuu ka helo erga meeshaas dhalinyartaas iyo wiilashaas dhexdooda dad ba asigu shaqaynaya oo soo dirsaday oo ku jiraan dhalinyarta dhexdooda kulligood maaha 90% maaha waa 10% waa wiilal iyo gabdho oo u shaqeeyaan caananuug oo asiga soo dirsaday oo ayaga naftirkooda ma ogo
masaakiinta oo lagu shaqaysanaa maanta dantiisa ka gaarana waa ka gudbaa waa cananuug wax lagu ogyahay wax shay cusub maaha daniista waaye asxaabtiisa iyo raggii asiga shalay soo garab qabtay dhalinyarani sheega asxaabtii iyo shalay iyo raggii asiga soo garab qabtay kursigan saareen oo bilaash ku saareen asigoo lacag laga qaadanin asigoo shuruud lagu xirin boo shalay inkiray oo teleefoonaashii iyo magaciisa uu ka dhuntay oo teleefoonaashii qaban waay oona ka dhuntay oo marka qaarkiisa dadka markay u imaadaan oo familkii ehelkii ciidankiisa askartiisa securitykiisa markay dhahaan wallahi fulana banaanka kuu taagan iyo saaxiib nin saas sidaas sheeganaya saaxiibkaana banaanka kuu taagan oo muxuu dhihi jiray aniga garan maayo ama telefoonka xili jira oo dhihi jiray dheeraya meesha ka tuura marka dhalinyarta u sheegay aniga dhalinyarta beesha garjameeda u sheegay kulligoodan ma ahine qaarkooda kulligoodna wada sheegay laakiin qaarka oo canugu shaqeeyaan cananuug waa nin beesha garjameed lugooye waa nin beeshaan garjata gardheer Soomaali oo dhulka la gada ayad iyo magaceeda waa nin beeshaan oo wax u qabta lahayn marka maanta wiilkii gabadha oo lagu shaqeysanayo maxaa ugu digaa nin oo magaciisa beeshaada wax u qabanin magacaada wax u qabanin oo waalidkaada iyo magaciisa iyo nabadoonyaashaada iyo ugaasiyaashaada ka soo dhuuntay adiga kugu shaqeysanin adiga yoo kugu shaqeysan yoo ka dhigan dameerkii kori lahay oo wadada ku dhaafi lahay hala shar garay barnaamijka asxaabay marka yoo niga dhiganin cananuug wado oo ku mari lahay sidoo hadhowt erga u sameeysto ninkan ayka xaflad baa sameysateen xafladii markaa sameysateen dad asiga u shaqeynayaan maxay rabeen inay magaciisa meeshaas ka abaabulaan ahdaaf siyaasiye ah oo magaciisa lagu soo bandhigayo cananuug fikradiisa marka ayadoo taas oo rabo inuu qabto oo magaciisa dad oo dhalinyar oo samaystay oo xamar oo joogo oo dad asiga oo guddi yar oo samaystay asiga u shaqeynaya gaar u ah oo caloosad u shaqaystayaal ah qaarkoodana dad waaweyn ah odayaal ah dhahno iyo qaar oo magaciisa dhalinyar oo samaystay markaas oo muxuu ku samaystay gacmo oo asigu dhexgeli karaan wiilashan iyo gabdhahan oo beesha garjameed oo faraxsanayeen oo calankooda ku soo bandhigteen xafladaas oo samaysteen oo raba inuu xafladaas ka dhigo jawi siyaasadeed oo doorasho bedel ma ahayd xaflad farxad oo dhalinyartaasi ku farxayeen calankooda ku soo bandhigayeen oo dhalinyar isku imaada magaca garjameed kor u qaadayeen asigana dad baa u shaqeynayeen oo ka dhigo inuu ka dhigo bandhig oo ahdaafkii siyaasadda ku soo bandhigo waa u noqon weyse markaas warqad isoo gaartaan akhri doonaa laakiin horta waa inii sharxa markaas kadib laan iska hadal uu hadli maayo barnaamijkan kan wuxuu ku xiran yahay barnaamijkayga hore oo 2 maalmood 3 maalmood ka hadlay cananuug iyo ahdaafkii wuxuu u joogo muqdisho oo ka sameeyay abaabulka muqdisho u joogo iyo inuu dhalinyarta oo magaciisa wadada u taagan yahay iyo inuu dad asigu u shaqeynaa caloosud u shaqaystayaal ah oo magaciisa oo 4 beelood garjan ay ku dhex wareegayaan inay erga u soo saaraan iyo odayaal u soo saaraan waa u noqon weysay dhalinyartii wada marka gaadooya oo been u sheegaya marka maalintii dambe taariikhda markay ahayd 12 bisha maalinta axad ahayd baa dhalinyar qaarkooda group baa jiro oo ka dhaxayso dhalinyarta beesha garjameed ee ku sheekaystaan ee ahdaafkooda ku qabsadaan ee iskaga xiriiraan beelweynta garjameed dhalinyartaas groupkooda oo laga dhigay ayaga group wuxuu ahay dhalinyarta beesha garjameed quseeyo markaasaa groupkaas dhexdiisa oo dad inuu soo gashtay asiga
gaar u ah oo fara caananuug wataan gruubkaasay soo dhex galeen maxay sameeyeen wiilashii gabdhihii meesha ku jireen ee u balamiyeen axaddii la soo dhaafay balanta taasay ahayd warqadana iyo qoraalka waa soo dhigi doonaa facebook insha allah markaa ka baxa liveka sirna soo gaarta waayo ciddana soo gaarsana sheegi mayno laakiin ha ogaado caananuug in anaga la socno ogow marka maalintii axadda oo maxaa lagu balamiyey wiilashaas iyo gabdhahaas oo gruubkaas ku jiraan ina zoom laga wada hadlo zoom oo xaflad oo magaciisa shir la sameeyo waa shir fiiriya waa shir oo in la qabto dhalinyartaas soo wada galaan shirkaasna maxaa maczuumka oo marti ku sida wiilasha qaarkood sheegayaan u sheegayaan dhalinyartii kale maxaa rabnaa inay qabano dheen shirkaasna maxaa marti noogu ninka xildhibaankii hore caananuug fiiriya garjamay fiiriya khiyaanadoo wado caananuug fiiriya bahdalaadda uu geysanaya xildhibaankii hore caananuug beeshiishii garjameed fiiriya garjamay hadalkan aniga dhowr marana ka digay intaa isku jeediin ama kala jeediin cadowga waan iga faa'iidaysanaa oo garjameed dhexdeena ku jira waa cadow kale maahan oo maanta soomaaliyeed waa cadowgeena anagana ugu dhex jiro bes hala sheer garaya asxaabta barnaamijka waa cadowga anagana ugu dhex jiro iyo xildhibaankeena le waay dad kale ma haysano anaga ummad kale soomaaliyeed ma haysano waa bes cadowga walaalkaada oo asiga magacii garjameed kula wado dhiiggaada laakiin oo luqaafadaa iyo lugooyadaada ka talinayo marka wiilashaas maxay fikre usoo dhigeen fikradaas dabcan asigaa wato fikre maxay u keenay dhalinyartii kale in la sameeyo subaxdii 4 saac subaxnimo maalinta axadda taariikhda markay tahay 12 bisha oo hadda ku jirno waa axadda lasoo dhaafay 12 bisha September in ay qabtaan shir oo group zoom zoom lagu wada hadlayo shirkaasna maxaa marti ku xildhibaankii hore caananuug marka waa ogolaadeen dhalinyartii maadaama fikro cusub taa oo ayaga is dhahayaan nin siyaasi oo xildhibaan soo galay ani magaciisa la wada hadlaysiin marka maalintii dambe markii oo maalintii axadda shirki markuu dhacay shir beeneedkii oo lagu luqaafeynayo ama lagu lugooynayo beesha garjameed oo tuugii caananuug watay ilaahay amarkiis dhalinyartii qaarkooda markii ninkan la soo geliyey dhalinyartii qaarkooda damiirka kacay ninkan barbagaantiisii beentiisa waa ugu baxeen zoomkii markaas meeshaas lugoosa ka dhacday caananuug jab baa ka gaaray dhalinyartaasna aniga uu hambalayna maasha allah waa ka baxsateen damiirkiina oo haddoo maasha allah nii tusay ninkii oo cadow nigu ahaay luqaafada nigu ahaay ninkii hal dhalinyar oo garjameed oo bannaanka u dirin ha ahaato tacliim ha ahaato wax magaciisa caafimaad ha ahaado ninkii askarnimo xataa nii dirin ninkii maanta oo dhalinyar garjameed 10 ahaate ama 5 ahaate ama 50 ahaate oo dowladda dhexe ama magaciisa meeshuu asiga joogo shaqo ka siinin ninkii kursiyaashiina kale oo gobolaha ku laheedeen oo gatay ninkii nii inkiray oo magaca beesha garjameed dhan ka dhuuntay haddii fahanteen inuu ninkan oo luqaafo yahay badaas alxamdulilah waaye aniga hambali u dhahaa dhalinyartaas horta maxaa uu intaas taasa uga baxa talabaad dhalinyartaas maxaa dhahaa 1 jeer oo maasantiin xafladaa samaysteen 1 lamo shirqoolkii nagu waday oo caananuug oo raba ahdaafkiisa siyaasiyada inuu shirkaas nii sameeyo ka qayb gashiin oo beeshiina iyo culum iyo waalidkiina iyo ugaasyaashiina iyo nabadoonayaashiina inaa khayaantiin buu rabay laakiin waa ka fikirteen waana magaciisa aad iyo aad wax oo magaciisa qof walba garjan laga sugaayo aad samayseen aad iyo aad ugu mahadsantiin
maxaa u soo naqanaa kuwa kale oo caananuug wato dhalinyarta kale caananuug wadato aniga wax ni dhihi maayo dad walaalaad tihiin waalid baan ii nahne walaalaheenaad tihiin laakiin maxaan ii sheegaa caananuug yoonigu danaysanin dhalinyarta caananuug daba socoto u ololeynayso oo dhalinyarta kale usoo jiidayso maxaa u sheegaa caananuug yoonigu ololeysanin caananuug waxay beesha garjameed ka waaysay adiga ka heli maysiin caananuug waxay nabadoonyaashii iyo magaciisa cuqaashii garjameed ka waaysay ayagani ka heli maysiin caananuug 4 sano wiil gabar garjameed ama wiil garjameed oo wax u qabtay ma jiro ama magaciisa beel garjameed ama 4 oo jufo garjameed hal jufo too ka dhashta xataa ahaatee riilasa magaciisa garjameed waxa u qabta ma jirto beeniyaan ila sheegin taariikhdan gadaal u raaca ayaga maanta haddaa indhaha furteen oo maanta caananuug oo magaciisa ku faraxsantiina nin xildhibaan ah inuu niisoo dhex istaago ama niisoo waco maaha jeceel iyo magaciisa walaaltinimo iyo waalid ahaan inuu niisoo wacayo waa tabar u geysay inuu beeshiisa meesha ina naceen beeshiisa inuu rajo ka waayo oo ayaga rajo nii bidaaya dhalinyarta garjameed marka jeceel ma aha ninkan waa la og yahay daniista waaye shalaba dadkii oo kursigaas saareen ugu tagay maanta ayagana waxaa kelaysiin iska yar marka maxaan ii sheegaa inaad ka waatootiin inaad dadka walaalihiina iyo waalidkiina iyo beeshiina inaad la goysiin iska alaaliya taasaan igaaga digaa dhalinyarta oo caananuug la shaqayso kuwa kasoo horjeesteenna maxaa dhahaa jazaakum allahu khayr maasha allah kuwa hadda asaga la jiraana maxaa raba inay kasoo noqdaan ee ka waantoobaan caananuug waa nin oo dan kale u shaqeeyo danta garjama wado yoonii magaciisa war oo beenbeeneedan iyo wax baanii qabanaa iyo dibadda baanii diraa iyo turkiyaanii diraa iyo dhalinyarta iyo madaxnii gelin waa la ogyahay inuu dadka qaarkiisa u yiri dhalinyarta qaarkooda haddii oo xildhibaanimada ku soo noqdo aniga turki baanii diraa turki dadka qaarkood dhalinyarta qaarkood taasoo u balan qaaday warkaasaan ii hayaa dhalinyarta qaarkooda uu balan qaaday inuu marka xildhibaanada magaciisa hadduu ku soo noqdo ay u abaabulaan oo asigna kursigaas ku soo noqdo inuu turki u diraayo caananuugtaasaa laga haayaa wiilashii gabdhihii oo beentaas u sheegane maxaa u sheegaa inay magaciis sheegadaas been tahay caananuug turki inuu nii dira iska dhaafe inuu waxbarasho nii dira iska dhaafe caananuug maalintuu kursigaas ku noqdaad wejigiisa ugu dambaysay arki doontiin telefoon asiga leeyahna niga qaban maayo meel asiga joogana tegi maysiin wuxuu ugaas ka waayna caananuuga iyo magaciisa xil 4 nabadoon ay ka waayeen iyo waalidkiina keelimaysiin ayinka dhalinyaray marka insha allah ina ka waantoontiin inaa ninkan beentiisa iyo luqaafadiisa ka fiirsatiin baa rabaa insha allah oo beeshin inaanan qiyaamin oon ahaanin dad kaar la isticmaalayo berina ma arkin oo la tuuraayo caananuug waa la og yahay beeshiina garab istaaga ciddee soo saarato ciddii oo xildhibaan ayaga soo saarato u abaabula u sacbiya garab istaaga annagana waa garab istaageena marka taasna waa mid kale wax kale uu sheegaa waalidiinta oo dhalinyartaas dhaleen inay la socdaan dhalinyartooda iyo magaciisa inaan la afduubanin inuu dhalinyartooda laga dhiganin waddo oo cadowga rabo beesha garjamad inuu isticmaalo cadow kalena ma qabna anaga oo cadowga gudaha horta iska safeyno kabacdi cadowga banaanku baxeena kabacdi garjan wax qabsahe kabacdi magaca garjan banaanku soo baxaa laakiin intuu nagu jiro cadow gudaha ah kor u kicmeen marka insha allah taasina il fahantiina rabaa dhalinyarta aad iyo aad horta umaasantihiin aad iyo aadaan u sharfantihiin dhalinyartii samaysteen xafladaas oo calankooda soo bandhigeen magaceeshiina halhal la soo koobi karo kulligiina wixii xafladaasha samaystana waa mahadsantihiin intii caananuug ka soo horjeesatane
oo shirqoolkoo wada daraad uu sameyn lahaay maalintii axadaheed kasoo hor istaagteen waa mahadsantihiin. kuwa asi la shaqaynayana maxaa rabaa insha allah inay ka waantoowaan ee kasoo naqdaan. taasna waa mid kale. dhalinyarta ugu soo gudbaa maxaa ii soo noqday ninkii caananuugaay. caananuugow tabarta maxay kuu tustay ama tabarta maxay kuu beertay oo tabartaada maxay noqotay inaad wiilal iyo gabdho oo yar yar inaad wadayaasha u istaagtid. sharaflaawo sharafta iska qaaday xildhibaan dhanaad tahay. wiilal iyo gabdho inaad dad soo dirsatay oo tiraa wiilal iyo gabdhaha jidka joogaan iyo meel xaflad joogaan iyo gruub ay ku jiraan ayaga oo isticmaalayaan iyo inaad u soo dhex gashid oo zoom inaad ka dhex gaadid iyo wadayaasha muqdisho inaad u istaagtid. tabartaada meeshaad ku beertay. tabartaa kaa tagaday. bartaasna adaa isdhigay. haddaa ahaalad xildhibaan oo beeshiisa ku dhex jiro ugaasyaashiisa nabadoonyaashiisa culamadiisa sidaa ma ahaa lehen. laakiin maxaa kuu sheegaa sharafta waaba kaa dhacdee intaan ha kusii darsanin. intaan ha kusii darsaanin. intaa kugu joogta sheeko. haddaad dhimanaysan dhareerka waa la iska tiraadeen soomaalida. war adeer 4 sano waxaa ku qaban weyso aa ku dherga weysane 4 sano kale maku dhergeysid. wixii oo magaciisa garjan loo rabana afkaa u dhigatay. wixii oo magaciisa ummadda garjameed laheedna afkaa u dhigatay. marka 4 sano waxaa cuntay ha kugu filnaatee iskaaga taga meesha. luqaafadaada wadidne haddaa u malaysina kursi lagu koraayo sidaan tuugnimada lagu koraayo dhalinyar iyo wiilal gabdho yar oo soo baxbaxeen oo beeshaan u soo baxeen oo adiga shalay wax u qabo weysay. wiilalaa ku jiraa meeshaan iyo gabdho garjameed oo jaamacayaasha dhammeeyeen oo iskuulka dhammeeyeen oo rabeen sida magaciisa beelaha kale camal dibadda loo diro dhalinyartooda. marka dhalinyartaas adiga wax u qabo weysay caananuugow maanta tabartaada maxay noqotay in ayagu usoo noqotid oo garka iyo jilbaha qabsatid oo tiraahdo erge inaa ka samaysatid oo tiraahdo iyo ololeya wax kuu ololeyaa waasi. 4 odaya ku daba taagan waxay kuu qabanayaan ma jiraan. waana ceeboobe geed dheer kor walaa geed gaaban kor sidaana ku daba soconaynaa. ceebtaada maalin kasta banaankaa sidaan usoo dhigaynaa. meel walbaa joogtid fikrad kastoo aa keentid inaad beesha ku shirqooshid kuu hagaagi mayso. garjanne sankee kaa haysataa waa kuu sheega. marka maxaa kuu roon intaan ceeb a kugu fil maxaa kuu roon inaad banaankas kaaga baxdid oo garjamay tiraahdo kursigaan maaynooha qaata. yaana taariikhda baalmadooba ka gashay. hadda ka bacdin cid ku aaminaysa ma jirto oo garjan ah. tug baad tahay oo tolkiisa iyo beeshiisa wax u qabanin oo 4 sane daba socday dad islaameed. waxa u qabatay dad islaameed baa wax u qabanaysa. horta beeshaada wax u qaba ka bacdi dad islaameed wax u qabo. magacaas oo maxaa ku rooreysay waa la ogyahay. kuu sheegi maayo dhowr maraa sheegay ma garatay. marka maxaa kuu sheegaa tabartaa kuu deerisay sanana lagu daba taagnaana nin xishoonayna ma tihid. intaan a kugu ekaato sheeko iyo aflaam marba a keenaysid markismaayo ka abaabushid ummad iyo shir ah ka abaabushid iyo mar aa muqdisho imaadid oo isku daydid inaa oo dhalinyar oo afduubatid. taasna caananuugaa dhaa. midda saddexaadne maxaa u sheegaa beesha weyn garjanta gardheere samaale oo sharfan. garjamay inaha fura murashaxiintiina banaanka soo dhigta midnimo sameeya. 4 oday oo beesha garjameed hasku imaado macal ogaaskooda
إن شاء الله وحي باشا قارئ سمايا تاساني دلبنا مركزنا نيجا عصدا إناد وحي باشان وبدبادسين وكرسياسيد إن شاء الله أن عدو كبدبادسين ومدنمدنا odayaashii garjamada looga fadhiyaa insha allah taasa uga baxa insha allah maxaan rajeynaa guul iyo gobonnimo insha allah iyo magacii kor insha allah iyo midnimo garjanta dheer Soomaali meel walba joogtaan wani wada salaama salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh